assalaamu calaykum. Waxaan rabaa inaan idinla wadaago dhowr qodob oo dowladnimada Soomaaliya ragaadiyey. Dowladnimada Soomaaliya dhabarka ka jabiyey. Dowladnimada Soomaaliya ay la hana qaadi lacdahay. Dowladnimada Soomaaliya dhaawacay ilaa ay haddana dilay kalsoonidii dadka Soomaaliyeed ka dhaxaysay ama kalsoonidii dadka Soomaalida ay ku qabi lahaayeen dowladnimada. Qodobada koow waxaa ka ah qofku isagoo khaa'in wadan ah ama dawlad federaal madaxa ka ahaado xilku doonaha ka hayo ama maamul goboleed xilku doonaha ka hayo ama qof shakhsi ha ahaado ama shirkad ha ahaado ama ha ahaado nin wadaad ha ahaado qofku isagoo oo khaa'in wadan ah ayuu bulshada Soomaaliyeed qof caadi ka yahay. dowladnimada casriga adduunka ka jirta dambi bay ka tahay arrintaasi, laakiin dadka Soomaaliyeed arrintaasi caadi bay ka tahay. waliba garab buu helayaa oo dadka ama la qabiilka ah ama la mabda'a ah ayaaba difaacaya oo maxaad ka rabtaan lahooba u dagaalamay haday rabaan. marka laguma qabi karo kalsooni dowladnimada Soomaaliya, la iskumana kalsoonaan karo adigoo oo og qofka madaxda ahi ama maamul goboleed ha ahaado ama federaal ha ahaado ama wuxuu doona ha ahaadee inuu dalkii khiyaamayo oo ku danaysanayo oo ummadii uusan dan ka lahayn ee uu danaysi wado gaar ah. de waxa weeye waa khaa'in wadan weeye, cid alla cid ku kalsoonaan kartaa ma jirto. marka arrintaas Soomaalidu waa inay fahamto dowladnimadan ay leeyihiin maxay dowladnimadii la hana qaadi la'aday waxa weeye adeer qof khaa'in wadan cidna kuma kalsoonaanayso ama maamul goboleed ahaw ama federaal joog ama waxa doonta ahaw. taas horta waa mid waxyaabaha dowladnimada ragaadiyay. waxaa kaloo ka mid ah dowladnimada casriga ee caalamka waxyaabo dembi weyn ka ah, laakiin dowladnimada Soomaaliya iyo maamul goboleedyada Soomaaliya iyo bulshada Soomaalida caadi ka ah waxa la yiraahdo spy. Soomaaliga la yiraahdo basaas. macnaha qofku inuu basaas yahay oo wadankiisa wadan kale u basaasayo haddana bulshada dhexdeeda uu caadi ka yahay. bulshada Soomaaliyeed caadi buu ka dhaxyaa ama dowladdu federaalku madax ka yahay ama maamul goboleedyadu madax ka yahay ama wasiir yani markuu leeyahay madax ka yahay aan leeyahay macnaha darajadu doonu ka hayn karaa maaha inuu madaxweynayaal ka yahay kaliya. macnaha wasiir buu noqon karaa, baarlamaanku ku jiri karaa, agaasimu noqon karaa, ciidamadu ku jiri karaa, wuxuu doono ahaan karaa, madaxweyne ahaan karaa. maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka aba dad badan oo spy ah baa ka shaqeeya dadka Soomaaliyeedna ay tuhunsan yihiin ama dee laguba arko oo uusan qarsanaynin, laakiin qof caadi ah loo arkaaba. caadi baa loo arkaa isagiina uu istifaacaya dad badan oo difaacana uu leeyahay macnaha bulshadiina dee wax weynba uma aragto. marka dowladnimadii Soomaaliya ma hana qaadi karto iyada oo dad basaasiina oo aan wadaniyiin ahayn ay dalka hogaaminayaan. waxaa kaloo iyadana ka mid ah oo dowladnimada Soomaaliya dhabar ka jabiyey waxa la yiraahdo musuqmaasuqa. musuqmaasuqu shirkadaha ganacsiga iyo maxay ahayd dowladnimada iyo hoggaanka iyo walba u baabi'iyaa. meesha hadii musuqmaasuq soo galo koboc ma jiro, burbur baa kow ah. musuqmaasuq marka la yiraahdo Soomaalida waxaa ku soo dhaca qalbigooda inta badan lacag la xaday. musuqmaasuqu uu ka weyn yahay ama corruption waxa la yiraahdo uu ka weyn yahay lacag meel laga xaday ama la isdaba mariyay. waxaa ka mid ah in aad waa ka mid ma aha macnaha ma wada aha waa ka mid in aad xil u magacawdid qof aan u qalmin. musuqmaasuq baad samaysaa qof aan aqoonteedii lahayn, khibradeedii lahayn, isagoo aqoon iyo khibrad bale qof aan wadaniyad lahayn in aad u magacawdid xil oo ama graduation ama tol ama kan aad ku keysid adiga ayaa burburkii iyo dowladnimadii caqabad ku ah maadaama aad qof noocaas wax u magacawday. waan ku arkay maamul goboleedyada iyo dowladda federaalkaba dad laga dhigayo maartay safaarada loo dhiibayo, dad wasiirha laga dhigayo, xubno baarlamaanka lagu darayo, golayaasha lagu darayo oo aan xataa caqliga caadiga ah ee common sense-ga ah ee Soomaalinimada aan lahayn oo xilal haya oo beel ama 4.5 ku yimi ama graduation ku yimi. marka runtii dowladnimada Soomaaliya ma hana qaadi karto iyadoo ay hoggaanka qabanayaan dad aan wadaniyiin ahayn oo basaasiin ah oo musuqmaasuq sameynaya. ma dhici karto inay waxaasi dowlad noqoto. marka runtii saddexda qodob way badan yihiin qodobada dowladnimada dilay, laakiin saddexda qodob waa qodobada halista ah ee dilay. qabyaalada kamida, balwada kamida way badan yihiin, laakiin halkan kuma soo koobi karo. saddexda qodob kaliya ayaan soo qaadanay. run ahaantii haddaan laga daweyn intaa dowladnimo ma hana qaadayso
والسلام عليكم ورحمة الله.